الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، يا إخوتي في الإسلام، يا إخوتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال maanta waxaan rabaa inaan la qaybsado saddex su'aalood oo Soomaalidu si aadaha ay soo weydiinayaan. Su'aasha koowaad waxay ahayd Imaaraadku ma Somaliland dib u aqoonsanayaa, qaabkee ayuu heshiiska u galayaa, yaa u saamaxaya, sharciga u saamaxayay muxuu yahay. midda labaad waxay tahay ummadda degta waqooyiga Soomaaliya ee la magac baxday Somaliland xaq iyo xuquuq ma u leeyihiin heshiis caynkaas inay galaan. dawladda Soomaaliya iyadu waa su'aasha saddexaad. dawladda Soomaaliya heshiiskaas ma waxbay ka ogtahay, maxay bulshada ooga kaafin lahayd? saddexdaas su'aalood oo la isweydiinayay ayaan rabaa mid inaan u dul istaago. waxaan isleenahay arrinta Imaaraadku. su'aasha koowaad oo ahayd Imaaraadku heshiiska uu galayo ma dawladda Somaliland dib u aqoonsaday mise si sharci darro ah ayuu u maamulanayaa dalka Soomaaliya. inta aynu ka warqabnay bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay wax aqoonsi ah oo nu maqalay oo saxaafadda caalamka, bulshada caalamka, aqoon-yahaniinta, indheergaradka loo soo tabiyay ma jirto. marka waxaan dhahaynaa dawladda Imaaraadku si indhala'aan ah oo wuxuushnimo ah oo sharaf ka qaadis ah oo karaama ka qaadis ah oo qiimo iyo midna aan u lahayn ummadda Soomaaliyeed ayay halkaas faragelin baahsan ku haysaa. ummaddiina way isku dirtay, waana suurtagal dagaalo colaado sokeeya xambaarsan inay halkaa ka holcaan. dawladda Imaaraadka intaas ay naga kaafinayaa shacabka Soomaaliya. Somaliland haddii aanu nimaadno ruqsad ma haysataa. wax ruqsad ah oo uga haysato ummadda Soomaaliyeed ma jirto oon ahayn khilaaf iyo ragaadin noloshii Soomaaliyeed ay dib u sii kadeedayaan. taana waanu ugu baaqaynaa walaalaha Soomaaliyeed haddaanu nahay inay ka joogaan Somaliland qalalaasaha siyaasadeed ay ka abuurayaan jawiga Soomaaliya guud ahaan gobollada waqooyiga Soomaaliya. Somalilandina intaas ayaanu dhahaynaa ugu baaqaynaa haddaanu nahay indheergaradkii iyo wax garadkii Soomaaliyeed ee qiimaha iyo sharafta iska lahaa. dawladda Soomaaliya waxaanu leenahay waad ka gaabiseen doorkiinii. dawladdii ka horreysay waxaa lagu xamanayay inay baddii Soomaaliya carqalad geliyeen oo hadda maxkamadda Hague ay taalo. haddana madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya madowga la mid ah ayaa ayagana dul haganaya oo waxaa la aaminsan yahay Imaaraadku inay qaarkood doorashadii Soomaaliya ay bari tunkaarayeen, saas darteedna ay ka aamuseen ama ay wax ka ogaayeen oo nolol ka qaateen. wararka la isla tibaaxayay waa sidaas. marka waxaanu leenahay dawladda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed inay dooratay qiimahooda iyo sharaftooda iyo walaalnimadkooda meel laha ooga dhicina. walaalayaal, wixii intaa ka soo kordha waan inila wadaagi doonaa insha Allah biidnillaahi baari. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي ونكسن.